waxaysan muddo ahaadaan aakhirkii waxaa damcay wiilkan ay qisada ku dhacday ayaa u soo bandhigtay jacaylkiisa. wuxuu ku yidhi saasa jirta waxaan doonayaa nolosha kula wadaago oon nolosha wada meel marino oo nolosha kula wadaago ee ka waran. iyadu hore way u ogeyn inay igu soo dhacayn, way is ogtahay inay taajiro tahay, way ka diiday dhowr jeer hore, way diiday mayba tiri adigoo sidana maya bay tiri niyow. adigu aakhirkii wiilkii siduu u baryo u daba socdo uga hari waayey, markii dambe way aqbashay. waxaa ku tiri waayahay, waxay sidaa ahaadaanba waxa dhacday inay ay isu soo dhawaadaan waqtigii ay isguursan lahaayeen uu soo dhawaado. wiilkii wuu soo bandhigay inantii wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan ku soo doono ee sidaad u aragtaa. inantu iyadu aad jacayl sidaasa kuma sii abuurin, balse haddana waxay u muujinaysaa inay jeceshahay ma muujinaysaa. waxaa ku tiri maniga ku jecel maanta ilaa waan ku soo doonaya soo doon haa sideen waan ku diidi karaa bay tiri. waayahay wiilkii wuxuu sameeyey xaafadda uu u sheegay, iyaduna xaafadooda way u sheegtay, la isku teg. markii intaan la ismehersan, intaan la isguursan, intaan hawlahaasi dhicinba inantu iyo inanku waxay ballan ku sii gaadheen inuu hadduu xitaa uu hawo u goglo ay ku wada seexanayaan, bannaanka ku seexanayaan ayay ku sii ballameen. waxay sidaa ahaadaanba aakhirkii la isu soo doon, la ismehersay. markii la ismehersaday la isu soo doonay, inantu intii hore wiilka caadi u ahayd, wax xumaanoo may muujin, waxay muujinaysaa jecesha. waxay sii horeen waxaan odhan karayaa waxay sii hore waxay sidaa ahaadaan. waxa timi inay waqti badan ay wada qaataan, balse intaanay ubadku iman meesha inantii waxay la soo baxday dabeecado kale oo ah inankiina ku hiifto lacag yaraanta. wiilkan wuxuu ahaa wiil isagu iska danyara, wuxuu ahaa wiil xamaalo ah. xamaalka 20 kun buu maalintii qaadanayay, 20 kun shilin kamuu hadhayn. 20 kun wuxuu u keenayay inantuu keenay xaafaddu keenay, hal shay kama iibsan jirin. dharkiisu ku soo guursaday ku taagan weli wax kale muu iibsan. kana ximayso odhanayso wuxuu ku keenay xaajigaagu lacag, waxba kale muu hadhin, adigu bal isxilqaam oo u soo iibi dhowr shay. waxaa dhacday inuu wiilkii 20 kun meesha keeno guriga. wuxuu sidaa u keenaba waxay keentay inay hiifto oo jiraa qeyrkay 20 kun way ka sharaf weeyeen. $20 bay ku casheeyaan, $20 bay ku qadeeyaan, $20 bay waxaa ku sameeyaan, $20 bay ku nustaaceen. adna 20 kun baa ilaa bil u qaado maalintii. wiilku wuxuu wada ogtay shaqadan hayo, hadda maad shaqo weyn hayo intaan waan kaaga badin lahaa. waxaa jira wadanahaaga 20 kun wax shaqaynaya maaha, ka soo kordhi 20 kun. waayo anigu waan ogahay, waad ogtahay saxan kaa soo raacay, waad ogtahay iyo qoyskan ka soo dhex baxay. isagu wax uu meeshu maraba waxba kama heli karo. waa danyar baan ku 20 kun buu dirqa ku helaa, xamaal uu ku helaa, maalin hadduu doono waayay. waxaa dhacday inuu wiilkii gabadhii mar walba aad buu jeclaa, uu daryeelayay, uu xanaanaynayay. inantu wax walba canaanataba kama aqbalayn. qisada maanta xaggaas inoogu joogtaa.